marka ilaahay wuxuu yiri waqata'nahum fil ardi umama reer banu israa'iil waa googoynay ba ilaahay dhulka lagu faafiyay minhum as-salihun wa minhum duna dhalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen ba ilaahay leeyahay وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwa kuwii kaga dambeeyay waa kuwii lumay فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي يقول كوا قداشدو حمري قلو qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxlay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warisu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo uu uga leex jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaale caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayr-sayriska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yiri warithu hada alkitab way dhaxleen baa la yiri halbay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa yaakhuduna arada hada aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yati ma'radun mithlu yaakhudhu waa iska dambaabaya waxay doonaan bay sameeyaan marka ay dhawr waaseen waxa oran insha Allah ilaahay baa noo dambi dhaafi طبعا ilaahay dambiga ugu dhaafa laakiin hadana haday mushkiladu timaadaba ilaahay leeyahay marka la iska qaadanaya marka amalka war ilaahay baa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa ma xika soo horbaxay islaamnimo waa khilaafayaan waxaana nafta ugu sheekeynayaan ilaahay waa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin ma ha ghafuurur rahiim nima intuu rumeeyay wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wa yaatihim aradun mithlu yaakhudhuhu ba ilaahay tii kullabaad oo lamid haday soo martaan halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan ba ilaahay ilaahay markaa wuxuu war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay xaq ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan قالوا نوعا ولك لنا إلهي وحولي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون كوا كتابك قبقب سنة يبا إلهي مسكوا بتضعيفة اللغة العربية يعني وحوي يعني مركز قبقبته وقف آن رمين وحنين وكبح صده هل يا دمر كل قبطه كسيبته وقف عادي لكن كان واقف ربا محي inuu xajisto kuwa xajisanayaba ilaahay kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay idan waa laba midun inay dhahna insha Allah sayughfaru lana wa arurtu iska hagaagi doonta diinku waa arrimaha diinta oo dhamay ay noqdaan insha Allah inaynu sayughfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادنه يينن قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حجسنه